بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا وروحي دالك يدافع عالم كينغا سو غاري oo aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee CW qodobada warkeena aad ku maqli doontaan ee ugu door kroon waxa kamid ah kiiskii saddexaad oo caabuqa corona oo laga helay magaalada Muqdisho shacabka magaalada Caabud Waaqo soo dhaweeyay natiijooyinka laga gaaray deyn cafinta Soomaaliya dhalinyarada gacanta ku haysa maktabada Caabud Waaqo ka warbixiyay halka ay marayso maamulka magaalada Balad Xaawo oo dhagax dhigay garoon cusub ee diyaaradood oo ay yeelanayso magaalada Balad Xaawo bulshada ku nool magaalada Kismaayo ayaa soo dhaweeyay natiijooyinka laga gaaray deyn cafinta Soomaaliya qodobada dibadana waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha dalka UK oo laga helay caabuqa corona qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warkayaga balse u diyaar garooba goordho warkii oo fidsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal iminkana warkii oo fidsan kiiskii saddexaad ee caabuqa corona oo laga helay magaalada Muqdisho sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya warbixintan waxa inoo eegayo wariyahayaga Mahad Dhukane Yuusuf wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa shaacisay in qofkii saddexaad ee qaba caabuqa corona laga helay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wasiir Fawziya oo ka qayb galaysay barnaamij ka baxay TV-ga dawladda ayaa sheegtay in shalay galinkii dambe lagu soo wargeliyay in qof ajnabi ah oo qaba cudurka coronavirus laga helay xerada xalan ee magaalada Muqdisho waxa ay hadalkeeda intaasi ku dartay in qofka ajnabiga ah laga helay calaamada cudurka isla markaana haatan lagu karantiilayo gudaha xerada xalan ee magaalada Muqdisho dhanka kalena qaramada midoobay ayaa markaasi shaacisay in qofka laga helay cudurkani uu kamid ahaa shaqaalahooda oo ahaa markaasi qandaraas la ganacsade kaasi oo ku sugan gudaha xerada xalan ee magaalada Muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay qaramada midoobay ayaa waxa lagu sheegay in qofkaasi la karantiilay 8 maalmood ka hor baaritaan la sameeyay laga helay cudurka baaritaankaasna loo marsiyay si loola socdo dhaqdhaqaaqiisa qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay si dhab ah u qaadaysaa COVID-19 faafida adduunka isbuucyadii la soo dhaafayna waxay diyaarisay howlgallo caafimaad iyo nidaamyo taageero ah suurtagalnimada in sidan oo kale ay dhacdo ahmiyadeena ayaa ah inaan markaasi daryeelno qandaraaslaha iyo inaan ka hortagno faafitaan kale oo fayruusa sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa waxa lagu sheegay in qaramada midoobay iyada oo la sii marsiinayo xafiiska maxalliga ee ururka caafimaadka adduunka ee WHO ay la shaqeynayso mas'uuliyiinta Soomaaliya sidii loo diyaarin lahaa nidaamyada caafimaad ee dalka si loo xakameeyo loona yareeyo wax kasta oo faafiya cudurka COVID-19 waa Mahad Dhukane Yuusuf CW TV magaalada Caabud Waaqo shacabka magaalada Caabud Waaqo ayaa soo dhaweeyay guulaha natiijada leh ee laga gaaray deyn cafinta Soomaaliya sida uu qodobkan inoogu faahfaahinayo wariyahayaga Mahad Basheer Xilif xilli maalmahan hay'adda lacagta adduunka ay sheegtay in guud ahaanba Soomaaliya laga cafiyay deymihii lagu lahaa ayna soo dhaweysay dawladda Soomaaliya arintaasi ayaa bulshada Soomaaliyeed ayaguna soo dhaweeyeen arintaasi deyn cafinta loo sameeyay Soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada Caabud Waaqo ayaa ayaguna dhankooda arintaasi soo dhaweeyay xilli aynu mikrofon maanta talo dhex qaadnay bulshada ayaa waxay sheegeen inay tahay tilaabo lagu farxo ayagoona bogaadiyay madaxda xukuumadda Soomaaliya waxaan soo dhaweynayaa halkan ummadda Soomaaliyeed meel ka soo joogto uga hambalyeynaya deynta laga cafiyay Soomaaliya oo muddo ka badan 30 sano lagu lahaa taasoo ahayd badankeedu wax interest rate la yiraahdo oo caalamku qofkii ku feelgarooba la saarto waxaan rajaynaynaa marka Soomaaliya inay guul soo hoyatay si ballaaran mid maqan iyo mid jooga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed hambalyaanu leenahay waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya cid kastoo ka qayb qaadatay maamul goboleedyada wasiirka maaliyadda shacabka Soomaaliyeed oo saaciday cashuuraha inay bixiyaan oo gartay inay bixiyaan cashuuraha wadadii ay ku qaadi lahaayeen dawladda u ogolaaday waxaan u soo dhaweynaynaa si hooseysa dhamaanba in ummadda Soomaaliyeed maanta guul u soo hayatay magacaygu waa Cabdulqaadir Cismaan Sheekhdon waxaan joogaa degmada Caabud Waaqo anigu haddaan ra'yigayga ka dhiibto meesha la yiraahdo deyn cafinta Soomaaliya haddaan ra'yiga ka dhiibto
waxaan qabaa inay marka ummadda Soomaaliyeed wax badan bay ka caawin doontaa oo waxay ka caawin doontaa qofku meesha uu rabo inuu wax u raadsado bangiyada hadda bangiyo ma jiraan waaweyn oo Soomaaliyeed ma jiraan oo caalamka wax ka soo qaadan kara in bangiyada inta la samaysto ay caalamka wax ka soo qaataan oo caalamkaas ay inta wax ka soo qaataan ay maal gashadaan deegaanadooda gobolkooda ay maal gashadaan magacaygu waa Cabdiqaadir Umar Cabdirashiid waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool degmada Caawad gobolka Galgaduud runtii aad baan u soo dhaweynayaa dhinaca cafinta Soomaaliya loo sameeyay waxaan ku amaanaynaa dawladda federaalka oo ugu horeeya madaxweynaha mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre dhalinyar ahaan anaga aad baan u soo dhaweynaynaa waayo dhinaca cafinta waxay ahayd caqabad ugu weyn oo nagu gudban bay ahayd wixii hadda ka bilaw hadda waan ka gudubnay adduunweynahan uu aaminaya ganacsigeeni iyo shaqo abuurkeen insha Allah waa diyaar dawladda halka ka sii wado waan taageeraya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdifataax Cabdi Maxamed dhalinyaro ku nool degmada Caabud Waaq deyn cafiska waan soo dhaweynayaa anigu aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa wixii ka qayb qaatay wasiir Bayle dawladdeena khayr Allah siiyo intaba waxaan kaloo leeyahay dadka macnaha dad baa diidan mucaarada oo dhahaya deynta Soomaaliya maxaa looga cafiyay iyo maxay macnaha soo kordhinaysaa dad baa dhahaya anu waxa dhiila deyntaas deyn cafiskaas waan soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol deyn cafinta dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli ay dadaalo badan galiyeen sidii deyntaasi looga cafin lahaa dalka iyadoona wasaaradda maaliyadda ee dalku ay wadooyin badan arintaasi u martay waa Mahad Bashir Cismaan Mahad Xilifi telefishinka caalamiga ICW magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud isla Caabud Waaq dhalinyarada gacanta ku haysa maktabadda akhriska ee magaalada Caabud Waaq ayaa ka warbixiyay halka ay marayso maktabadda sida warbixintan inoogu dhameystiraya wariyahayaga Nasteex Farxaan dhalinyarada gacanta ku haysa qalabeynta maktabadda guud ee degmada Caabud Waaq ayaa ka warbixiyay halka ay marayso qorshihii lagu furi lahaa maktabadda degmada Nasteex Aadan Cabdi iyo Cabdulqaadir Aadan Salaad oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ka wada furidda maktabadda oo la hadlay telefishinka Caabud Waaq TV ayaa bulshada Caabud Waaq ka codsaday in ay ka qayb qaataan sidii loo furi lahaa maktabadda ayagoo ku bixinaya maal iyo muruqba maktabadii iyo hawsheedii in muddo aan guud jirnay ما شاء الله ميل فعلا إنه مرسا قبل قبض مكتبة waxaan mahadcelinaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay qof kasta oo jecel horumarka iyo ka qayb qaadashada akhriska iyo qoraalka runtii qof walba uu dareemayaa faa'iidooyinka ay leedahay iyo sida ay bulshada muhiim u tahay inay helaan goob akhris iyo meel ay ka helaan cilmi badan maktabadu waxa weeye waxyaabaha kaaba bulshada aqoontana kor u qaada si loo helo xog badan in ay buugaag kala duwan dadka ay ka helaan maktabadii sidaas darteed haldoorka iyo aqoon-yahanada Caabud Waaq waxay dhexda u xirteen sidii u yeelan lahaayeen una hirgelin lahaayeen maktabad guud ee degmada yeelato meel fiican oo maryan buugti xoogooda wana soo gaareen waxna waa rajaynaa insha Allah inay soo gaaraan soo kooto qabanqaabadii waxa socota shalfarkii iyo bakal injiray agaasinkii waxaan bogaadinaynaa haldoorka iyo aqoon-yahanka ku shaqo leh hawshan isku xisaaray dhabar adayga iyo ka go'naanshaha inay helaan maktabad guud ee degmada yeelato waxaan bogaadinaynaa oo dhiirigelinaynaa cid kasta oo garab iyo gacan ka geysata baan ognahay mar haddii ay tahay dan bulsho badana dadku ma wada dareensana isku sinay lagama jawaab celiyo dadka hantidooda iyo maalkooda iyo buugtooda intaba ku saboodgareey ku taageeray maktabadda waan bogaadinaynaa runtii wixii aan oran lahaa iyo wixii maktabadda ku saabsanaa waxa yiraahday Nasteex Aadan Cabdi kana mid ah howladeennada maktabadda guud ee Caabud Waaq runtii waxaan oran karnaa si guud markii loo fiirsho bulsho walba bulshada kale waxay ka duwanaan kartaa intay ka akhris dheer tahay intay ka buugaag qoritaan badan tahay ay kaga badan tahay sidoo kale cilmiga iyo aragtida dheer waxaan leeyahay dhammaan dhalinyarada iyo bulshada ku nool Caabud Waaq ha soo dhaweeyeen ha ka qayb qaataan furitaanka maktabadda Caabud Waaq Nasteex Farxaan Shidane CWTV magaalada Caabud Waaq shacabka ku nool magaalada Kismaayo ayaa soo dhaweeyay natiijooyinka laga gaaray deyn cafinta Soomaaliya sida warbixintan uu inoogu soo diray wariyahayaga inooga soo warrama magaalada Kismaayo ayaa la aadan
muddooyinkii u dambeeyay waxaa dadaalo waday dowladda federaalka Soomaaliya taasi ay ku doonaysay sidii looga cafin lahaa Soomaaliya deynta lagu leeyahay. Haddaba qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Kismaayo ayaa ka dhiibtay dareenkooda iyo sidii ay u arkaan arrinka deyn cafinta. Inta lagu lahaa Soomaaliya waa midaan u baahneen weeye in la cafiyo. Annaga Soomaali baa leh shakhsi ma laha. qarankan Soomaaliyeed muddo 30 sano burbursanaa 30 sano hadduu burbursanaa wuxuu ka soo kabanayaa mataqaanaa burburkii dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay aad iyo aad mataqaanaa xoog u saartay deyn bixinta Soomaaliya in laga cafiyo waxa sharafta leh ee dawladda Soomaaliya oo ku guuleystay arrimihii deyn cafinta Soomaaliya juhdiga badan galiyeen qaasatan waxaan u mahad celinayaa wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Beyle oo aad iyo aad si xaqaar caadi aan ahayn arrintaas ooga soo shaqeeyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladda nabad iyo nolol aad ayaan u soo dhaweynaynaa muwaadiniinta Soomaaliyeedna waa ku faraxsanahay aad baana ugu qanacsanahay dawladda juhdiga ay ku bixisay deyn Soomaaliya oo laga celiyo horumar iyo waxaan rajaynaynaa insha Allah ilmaha iyo waxaan dhalnay in mustaqbal fiican oo ifay ay ku noolaadaan hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaan ka hadlayaa arrimaha deyn cafinta aad baan ugu faraxsanahay dawladda ku bogaadinahay marka waxaan soo dhaweynayaa oo aad iyo aad aan taageersanahay 100% deyntii lagu lahaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta joogto ilaa waqti laga joogo waxaan ku dhaw yaraan 40 sano ilaa 30 sano meelaha in laga cafiyo taas baan aad iyo aad soo dhaweynayaa waxaan leeyahay dadkii deynta ku lahaa iyo wadamadii ku lahaa deynta maadaama ay maartay anaga ay noo naxariisteen waxaan macnaha 100% waan taageersanahay waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay deynta Soomaaliya laga cafiyay dawladda waa taageeraynaa marka waxaan aad ugu faraxsanahay dawladda Soomaaliyeed oo shii ay qabatay iyo dadaalkii balaarna ay u fidisay dalka Soomaaliya ee u qabatay in maaragta deyntina laga cafiyay aad iyo aad ayaan arintaas ugu soo dhaweynayaa waxaana jeclahay in weligood ay dalka ka taliyaan ay ahaadaan kuwa Soomaaliya horumariyo Soomaaliya ayaa buuxisay dhammaan wixii shuruudo deyn cafin ah ayaan la aadan telefishinka caalamiga CWTV magaalada Kismaayo. magaalada Balad Xaawo ee ku taala xuduudda ayaa maanta laga dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo cusub waxaana dhagax dhigay garoonkaasi maamulka magaaladaasi sida warbixintan uu inoogu dhameystirayo wariyahayaga Mahad Bashiir Xilif. maamulka cusub ee magaalada Balad Xaawo oo kaashanaya maamulkii hore ee magaalada Balad Xaawo ayaa dhagax dhigay garoon cusub oo yeelan doonto magaalada xuduudda ku taala ee Balad Xaawo ee gobolka Gado. Gudoomiyihii hore iyo waliba gudoomiyaha cusub ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay garoonkan oo dhismihiisa la filayo in dhawaan si rasmi ah uu bilowdo. Garoonkan ayaa ku yaala aaga buurta Lafay oo koonfurta magaalada Balad Xaawo. garoonkan dhismihiisa waxaa maalgelin doona dawladda Soomaaliya oo hore u qorsheysay dhismaha garoonkani. magaalada Balad Xaawo waa magaalo xuduudeed ganacsi ballaaran leh ayadoona ku taala xuduudda dalka Kenya iyo waliba tan Soomaaliya. waa Mahad Bashiir Cismaan Mahad Xilif telefishinka caalamiga CW magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. iminkana akhbaaraadka dibadda ra'iisul wasaaraha dalka UK ayaa laga helay cudurka halista ee caabuqa corona. ra'iisul wasaaraha dalka UK Boris Johnson ayaa laga helay cudurka caabuqa corona sida uu ku xaqiijiyay qoraal uu soo saaray. Johnson ayaa sidoo kale sheegay inuu isgeliyay go'doon iskiisa balse uu sii wadi doono inuu hogaamiyo jawaabaha dawladda ay ka bixinayso faafinta cudurkan. afayeen u hadlay xafiiska UK looga arrimiyo ayaa sheegay in Johnson oo 55 sano jir ah uu astaan fudud isku arkay Khamiistii kadib markii uu ka jawaabay su'aalaha toddobaadyadii hore ra'iisul wasaaraha laga weydiiyay baarlamaanka. 24 saac ee la soo dhaafay waxaan isku arkay astaamaha waxaana la iga helay cudurka coronavirus ayuu yiri Johnson. si iskay ayaan isku go'doomiyay balse waxaan sii wadi doonaa jawaabaha dawladdu cudurkan ay uga hortagayso iyo adeegyada shirarka lagu qabanayo fiidiyowga inaga oo la dagaalamayna ayuu yiri fayraskan ilaa iyo hadda ma cadda tirada shaqaalaha xafiiska dalka looga arrimiyo iyo wasiirada sare
ee iskarantiili doona maadaama qaar badan oo ka mid ah ay xiriir la sameeyeen Johnson maalmihii iyo toddobaadyadii hore guud ahaanba daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa war wixii dalka iyo dunida inaga soo gaaray oo aad ka daawanayseen shaashada telefishinka caalamiga CW warka waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Mawlid Jaamac Faarax aniga iyo intii igala qayb qaadatayba waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo ammaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh